rabbiga subxaanahu watacaala warkiisu wuu cad yahay, adigu warkaagu ma cad yahay? rabbi wuxuu dhahay wain tatawallow haddaad sii jeesataan oo diintii dhabarka aadisaan ku dhaqankeeda iyo fahamkeeda iyo faafinteeda iyo haddaad dhabarka aadisaan yastabdil qowman hayrakum wuu idinka bedel qaadanayaa. marka wuxuu keensanayaa heyrkiin buu keensanayaa. kuwa la keensadayna ma noqonayaan idinkoo kaleetood, uma laa yakuunuu amhaalakum. ya allah, ilaahu naga bedel qaadan ya rabbi, ilaahu na sug ya rabbi. bal waxaad sawirataa shaqo aad ka shaqaynaysay, ismooji baad isdhehaysay, waad ismoojinaysay, si wanaagsan baad u shaqaynaysay. haddana qofkii aad u shaqaynaysay mudiirkii wuxuu ku dhahay adigu shaqada jooji, maanta laga bilaabato ha soo geli. uu ku fanishay shaqadii uu kaa buriyey. kadibna wuxuu keensaday mid kaleetood ayuu keensaday booskaaga, kaa shaqa liita. marka koowaadba laga yaabo inuu ku keensaday qaraabanimo iyo qabyaalad, laga yaabo inuu ku keensaday waxyaabo isdabamaris ah. sidoo rabaa ku keeno, maxaad dareemi lahayd? waad xanaaqi lahayd soo maaha? koraad madax u qaadi lahayd soo maaha? haddii aadanba dilinba gacan ay ku gaarin waa dacweyn lahayd. haddii aadan dacweyninna qalbigaad ka nici lahayd, ninkaa u xanaaqsanaa lahayd. haddaba ka waran, rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ku dhahay diin ayaan kaa bedel qaadanaya. ya allah ya rabbi, ilaahu naga bedel qaadan, ilaahu nagu sug xaqa ya rabbi. hadhowtii haddii aad xijaabka iska dhigto, adiga waxaa la keensanayaa gabar cadow xijaaban baa la keensanaya, xijaabkii ku faanaysa, meel kastay la maraysa. haddii adiga sunnadaad ka cabsato, rabbi subxaanahu watacaala wuxuu keensanayaa mid madow, mid cadaan iyo mid shayneys ah oo sunnada ku faanaya buu keensanaya. yacni masaajidadii buuxinaya. haddii masaajidadii aan ka orodno, meelaha lagu caweeyo, suuqyada aan taagnaano, rabbi subxaanahu watacaala wuxuu keensanayaa kuwo kaleetoodu buuxinaya masaajidada. kadibna suuqa kuugu imaanaya, maqaayadaha ku wacdinayo, iyagoo markaa u dhalan diintaan, laakiin adigii u dhashay aadan waxba ka garanayno dayacday. mana haysid tii adduunye ahayd oo dhaqaale ahayd, ma haysid tii aakhirana waad ka tagto, meel cidlaba taagantahay. hadhowti dhibaato badan baa marka meesha inoogaga imaanayso. aynu isdaba qabanno insha allah, diintiinaan ku dhaqanno. ma lagu dhahayo 100% lagu dhihi maayo, laakiin muhiimadda waxaa weye kasoo bax intii lagu saaray oo keliya. salaadaada ilaasho, soonkaaga ilaasho, masaajidkaaga iska imaa, xaaraanta ka fogaaw, xalaasha daa'imo, dadkana wanaagga far insha allah, dembigana dembaadkiiba dhaaf.